Bismillah waxaan wanaagsan daawadayaal idil hantii meel walba dunida ka joogtaan waa idin salaamay kusoo dhawaada Boseke Movies walaal haddaan nagu cusubtaa fadlan channelka subscribe noo saar haddii hore noogu joogtay fadlan like inoo saar muuqaalka asxaabtaada ma sii share garay taas waxay naga caawinaysaa inuu channelkeedu noqdo mid koro maanta waxaan sharxaynaa filim Janice lagu magacaabo How to Train Your Dragon filimku wuxuu ku bilaabanayaa Jackson waa wiil 6 jir ah oo jecel gabadh isku fasal yihiin maalmaha kamid ah wuxuu siinayaa warqadii nikaaxa isagoo ka codsanaya inay saxiixdo markii gabadha diido laba tikid oo filim ay u soo bandhigaya si ay xaaskiisa u noqoto iyadoo way saxiixday warqadii laakiin labadii tikid waxay u isticmaashay in wiil kale isku raacaan shaleemadii Jackson wuxuu leeyahay 5 gabdhood oo walaalaha kuwaas oo si xad dhaaf u ilaaliyaan asiga markay arkeen asiga inuu qalbi jabay waxay wacd ku mareen inay ka ilaalin doonaan gabdhaha oo idil filimku wuxuu isku bedelay 15 sano kadib Jackson wuu soo koray wuxuu noqday nin qurux badan laakiin wax kama qarsado walaalihiisa waxa kale oo nala baray dhammaan 5 gabdhood ee walaalihiisa tan ugu yar waxaa la dhahaa Lily waxay isku fasal yihiin asiga waxaa jirta mid labaad oo la yiraahdo Violet oo ka tirsan kooxda RJ ay badanaa isticmaashaa xirfadaha si ay Jackson u sameeyso wuxuu u rabo gabadha saddexaad waxay jabsatay kombiyuutarada waxaa lagu magacaabaa Janna waxay jibisaa nidaamka amniga dugsiga si ay u ilaaliso walaalkeeda gabadha labaad ee ugu weyn waa Mulud waxay macallin ka tahay dugsiga u aado Jackson ugu dambeyntii tan ugu weyn waa Sarah taasoo qof walba ka baqanayo waalidiintoodii waxay kala tageen waqti hore hablihii iyo wiilkiina way ka tageen ayaga ayaa isdaryeeli jiray maalmaha kamid ah dugsiga Jackson wuxuu ku daalay inuu maalin walba daba socdo walaashiisa saaxiibkiisa wuxuu u sameeyay suudka camera si uu u caawiyo inuu ayaga ka qariyo Jackson wuxuu ku dhamaanayaa gudaha qolka qubeyska ee gabdhaha asigoo isku dayay inuu sawiro laakiin gabar cusub oo magaceed la yiraahdo Mangi ayaa ka heshay meesha taasoo markii dambe ogeysay xafiiska arrimaha tacliinta Jackson ma jecel inuu dhibaato kale mana jecel inay walaalihiisa ogaadaan iskuulka kadib wuxuu si xabsi leh ugu socdaa guriga asigoo rajeynaya in walaashiisa labaad ee Mulud aan la ogeysiinin cidna soo hadal qaadeen dhacdooyinka maanta ku dhacay uu tahay laakiin intii lagu jira cashada Mulud waxay si caadi ahayn u sheegtay in laga helay qolka labiska asigoo gabdhaha fiirinayo qofkaas wuxuu yahay walaasheeda Sarah taasoo zaid u xanaaqday muuqaalka soo socda waxaan u jeednaa Jackson oo dhulka oo dhan lagu jiidayo kor baa loo laalaadiyay waxaana la weydiiyay wuxuu ka sameeyay qolka gabdhaha ee labiska gabdhaha waxay ka mamnuuceen inuu xiriir la sameeyo gabar kasta ayagoo isku dayay inay ka ilaaliyaan markale inuu ku dhacdo qalbi jab inkastoo ciqaabtan ay tahay mid aad u yar laakiin waxay u maleeyeen in mid ku fiican ay tahay asiga asiga ma la wadaagin aragtidooda markii ugu horeysay noloshiisa wuxuu ku argoosanaya oo ku andacoonay in uu baahan yahay inuu gabar la haasaabo mar Sarah ayaa iyada hore u sheegtay asiga inay ku xujeysanayso inuu helo saaxiib la mid ah sida ay yihiin gabdhaha walaalihiisa oo kale waxay xigtadu samaystay boor xayeysiisa kaasoo ay ku qoran tahay waxa u baahanay gabar saaxiib ila noqota saaxiibkiisa wuxuu u soo jeeday inuu la hadlo gabadha cusub ee Mangi ayaa nala tusaya taasoo ka caawinaysa dadka waxyaalo aan dhab ahaan u baahnayn in laga caawiyo ayaga Jackson wuu aqbalay inuu ka dhigto saaxiibkiisa laakiin way aragnimo uma laha si loola hadlo gabdhaha sidaas darteed saaxiibkiisa wuxuu aaday Mangi si uu u dhaadhacsiyay arrimaha Jackson wuxuu u sheegay inuu Jackson dhibban yahay ayna jirdilaan walaalihiisa wuxuuna u tiriyay dhammaan waxyaalihii hablaha ay ku sameey jireen kadib markii dhageysatay sheekooyinkii Mangi waxay dareemaysaa naxariis waxay ku socotaa dhanka Jackson si ay saaxiib la noqoto laakiin hal mar ayay maskaxdeeda isbedeshay waxay zaid u fiirinaysaa asiga qof ayaa si lama filaan war u faafiyay oo ku qaylinaya in bahal duurjoog ah oo ardayda soo weeraray Jackson wuxuu jilayaa geesinimo wuxuuna iska dhigayaa inuu qof walba badbaadinayo laakiin waxaa soo baxay in bahalku yahay mid boobil ah xitaa boombilii ayaa si hoos u riixay oo jaranjarada ka soo dhacay kaasoo markii dambe la geeyay Jackson isbitaal muuqaalka soo socda Jackson wuu soo kacay wuxuu arkayaa asigoo sariirta isbitaalka saaran oo Mangi ag joogto inkastoo aanu qorshaha sidii uu rabay u dhicin wuxuu helay inuu waqti badan la qaato Mangi waxay u sheegtay inay doonayso inay saaxiib la noqoto si naxariis leh kadib labadii walaalood ee Jackson ayaa imaadeen oo bilaabeen inay si xoog leh u sheegtaan asigoo aana daryeelin tani waxay ka careysiinaysaa Mangi oo waxay ku amartay inay joojiyaan arrintaasi intay hablaha si naxdin leh u eegtay waxay u muujisay inay tahay saaxiibta Jackson oo xanuunsan ayaa la yaabay hadalkii Mangi markay guriga imaadeen walaashiisa waxay si qarsoodi u weydiisay inay hadalku run yahay su'aasha ayuu kaftan u qaaday mana siinin jawaab sugan ilaa mar dambe walaashii ugu weynay Sarah ay weydiisay asiga inuu saaxiib la yahay Mangi gabdhihii walaalihiisa ay mar kale waxay ku xireen kor ayagoo aan rumaysnayn inuu awood u leeyahay inuu hal maalin saaxiib ku samaysto asiga Jackson wuxuu ku adkaystay inuu jaceylku aragii hore uu ahaa balse hablaha ma aaminsan arrintaasi waxay go'aansadeen inay qiimeeyaan inay u qalanto Mangi say u arkaan inay ku filan tahay walaalkooda maalintii xigtay Violet Mulud iyo Lily waxay yimaadeen dugsiga ee goobta dagaalka markii Jackson iyo Mangi ay wada joogeen Violet waxay isku dayday inay falaad ku toogato balse Jackson ayaa joojiyay waqti Mangi way dareentay arrintan waxayna u sheegtay inay hablaha isdajiyaan gabdhood iyo Mangi way soo hor istaageen wayna isjeesteen midba midda kale markii habkii Violet uu shaqeey waayay Lily ayaa arrinta gacanta ku hayso waxay ku hanjabtay dhammaan wiilashii qurxoona ee dugsiga inay saaxiib la noqdaan
fogaadaan Mandy ayna u dhawaadaan. Waxay rajeynaysaa inay ka leexiso jaceylka Mandy ee u qabta Jackson, laakiin qorshihii aad buu u fashilmay. Jackson wuxuu ka caawiyay Mandy inay ka fogaato raggii. Markay kasoo ordeen labadoodii, Violet waxay kasoo aragtay dhinaca kale ee dugsiga. Waxay ku dhowdahay inay mar kale toogato, laakiin markaan si lama filaan ayay ugu dhufatay waxyaalaha qarxa kaasoo qof kasoo tuuray hawada. Isla markii waxay keentay inuu ku qarxo hawada, laakiin taasi oo aan cidna waxba yeelin. Ayagoo qof walba jahwareersan yahay uu ka yaaban yahay wax sababay qarxii. Waxaan aragnaa nin ku jiro shaybaarka kiimikada oo sii diyaarinaya waxyaabo kale oo qarxa. Ujeedadiisu ma cadda, laakiin wuxuu muuqdaa inuu Mandy ka badbaadiyay Violet. musiibo kadib Jackson iyo Mandy waxay yimaadeen barxadda. Waxay ku wada raaxaysanayeen jalaato. Jackson wuxuu ogaaday in Mandy iska dhigayso saaxiibtiis, waxay u maleysaa inuu asiga leeyahay walaalo isku daya inay wax yeeleeyaan. Wuxuu go'aansaday inuu been u sheego inta uu awoodo. Guriga Lily iyo Violet ayaa sheekh xishood leh ku qirtay inay ku fashilmeen. Janna oo ku wanaagsan ayaa qaaday mas'uuliyad si loo soo afjaro sumcaddii Mandy. Waxay soo aruurisay muuqaaladii CCTV-ga ee kala duwan ee dugsiga oo Mandy ee been ka sheegay inay tahay qof laga naxo. Isla ka hor inta aysan soo gelin internetka, korontada qof ayaa damiyay. Waxaan aragnaa inuu yahay ninkii shaybaarka chemistry ku dhex jiray, uuna taagan yahay guriga hortiisa si uu u badbaadiyay Mandy, laakiin ujeedadiisa dhabta ilaa hadda ma garanayno. Guriga dhexdiisa, saddexda gabdhood ee walaalaha ah ayaa ku fashilmay inay wax ka qabtaan Mandy. Waxay soo jilba jabsadeen walaashooda ka weyn horteeda, Meloda. Mas'uuliyadda markaan waxaa qaaday Meloda oo rabta inay ka taqalusta Mandy. Maalintii xigtay waxay ku xujeysatay Mandy kulan sports ah. Waxay iska hor yimaadeen tartan lagu aruurinayo kalluunka dahabiga oo bilowday. Labadaas mid Meloda ayaa ku guuleysatay oo tustay Mandy awoodeeda. Waxay u dhow yihiin inay ku tartamaan wareegii ugu dambeeyay. Markay timid walaashoodii ugu weyneed ee Sarah, way isbartay ka hor inta ay la tartamin Mandy. Waa inay tuurtaa kubad bir ah oo culus intii suurtagal ah. Iyadoo adeegsanaysa xirfad gaar ah, Sarah waxay kubaddii hawada ku dhex meeraysiisay. Waxay ka soo qaaday meeshii kubadaha yaaleen kubad kale oo qarax ku jiro. Waxaan ogeyn inuu furaha ka baxay. Mandy waxay ka daftay Sarah kubaddii ka hor intaysan tuurin. Markii uu qarxay, Sarah waxay ogaatay inay nolosheedii la badbaadiyay. Waxay bilowday inay jeclaato Mandy, taasoo ka dhigaysa walaalaheed inay ixtiraamaan sidoo kale. Jackson wuxuu ku ordayaa garoonka dhexdiisa isagoo u mahadcelinaya Ilaahay inuu u keenay Mandy noloshiisa. Muuqaalka waxaa ku eg Jackson iyo Mandy oo waqti isla qaadanaya. Waxay isku raaceen dhowr shukaansi. Ugu dambeyntii, jaceylka beenta ah wuxuu isku bedelay mid run ah. Labadoodu wax badan ayay iska barteen midba midda kale, si zaid ayay isku jeclaadeen midba midka kale. Habeenada kamid ah waxay aadeen shukaansi. Waxay aadeen xeeb maran oo qofna aan joogin. Habeenkii oo dhan waqti ay isla qaadanayeen. Subaxdii way isla ciyaarayeen ayagoo dagaaltamaya oo habna is siinaya. Ninkii chemistry-ga ah ayaa korka fiirinaya ayaga, wuxuuna arkay ayagoo hab is siinaya, taasoo asiga ka xanaajisay. Laakiin hadda waxba kama qaban kara. Maalintii xigtay dugsiga, walaashii yareed Lily iyo Jackson way wada joogaan. Lily ayaa furaysa weelkay qadada ku qaada jirta oo lagu rakibay waxyaalaha qarxa. Isla markii qarax xoogan ayaa gelgeliyay dugsiga oo dhan. Jackson wuu fiican yahay, laakiin Lily ayaa miir doorsantay. Laakiin markii dambe waxaa la siiyay CPR si loogu soo celiyo miirkeedii. Wuxuu ahaa qarax kaliya mid kiimika ah. Qof walbana wuu nabad qabaa. Mandy waxay ogaatay in Jackson iyo walaalihiis si zaid isku jecel yihiin in isku soo ordeen. Mandy meesha way ka tagtay, waxaa soo daba orday Jackson. Way isku dhaceen midba midka kale, laakiin Mandy gebi ahaan buu iska indhatirtay asiga. Jackson wuu wareersan yahay, wuu qalbi jabsan yahay, laakiin ma weydiinin wax qaldan. Xaqiiqdii Mandy waxay ogaatay in waxyaalaha xunxun ay ku dhacayaan Jackson iyo walaalihiis kaliya ay bilaabdeen markay labadooda is shukaansadeen. Waxay u maleynaysaa inay u soo jiidayso waxyaalaha xunxun noloshiisa. Waxay go'aansatay inay ka fogaato Jackson. Jackson wuxuu isku dayaa inuu la hadlo si isdaba joog ah, laakiin way sii waday inay iska indhatirto asiga. Habeenada kamid ah magaalada waxaa ka da'ay roob aad u xoogan. Jackson wuxuu joogaa guriga markuu arkay war ku saabsan daadka wadooyinka. Wuxuu soo xasuustay Mandy inay ku jirto iskuulka inay sugayso intuu roobka joogsado. Markii ugu dambeysay oo iyada arkay, isla markii uu soo orday dugsiga si uu u helo iyada. Mandy waxay la dhibaatoonaysay inay istaagto roobka dartiisa. Jackson wuu isugay isagoo weydiinaya inay ku soo noqoto noloshiisa caadiga ah, laakiin Mandy iyadoo aan jeclayn ayay dhinac iskaga riixday. Waxay u sheegtay inay iskuulka iskaga bedelayso asiga dartiisa. Waxay rabtaa inay ka fogaato asiga. Jackson wuu qalbi jabay. Habeenkii dhan wuxuu taagnaa roobka hoostiisa. Subaxdii xigtay wuxuu maqlay qof gadaashiisa ka soo socda. Qofku wuxuu u maleynayay in Mandy uu ku qaldamo wuuna isku duubay, laakiin waaba ninkii abuurayay waxyaabaha qarxa uu afduubtay Jackson. Fiidkii waxaa iskuulka ka dhacay xalfad. Qof kasta wuxuu ku raaxaysanayay muusikada tooska ah iyo bandhigga hoolka. Mandy ayaa gees ka taagnayd. Gabdhihii walaalihiis ah ayaa walwalsan sababtoo ay maqnaashaha Jackson dartiisa. Ku dayeen inay soo qabtaan. Waxay soo ogaadeen telefoonkiisa meel u dhow inuu yaalo iskuulka. Buleerka markuu dhacay kadib, nin weji qarsan ayaa si la yaab leh uu la wareegay masraxii. Waa ninkii afduubtay Jackson oo gantaal ku xiray. Wuxuuna u sheegay inuu ku dhow yahay inuu duuli doono gantaalka. Markii la weydiiyay sababta, wuxuu sheegay inuu necban yahay Jackson. Wuxuuna u muujiyay inuuna arki karin qof walba oo saaxiib la ah. Wuxuu jecel u qabay Mandy aragtidii hore had iyo jeer. Wuu ka ag dhawaa iyada. Wuxuu ka badbaadiyay walaalihii Jackson, laakiin weli Mandy cid kale ma jecleen oo waxay jecleed kaliya Jackson. Sidaas darteed wuxuu halkan u joogaa inuu ka arguto Jackson oo ka xaday farxadda kaliya ee noloshiisa uu haystay.
gabdhihii la dhashtay Jackson, Mangi iyo qaar ka mid ah saaxiibadii Jackson waxay isku dayeen intii karaankooda inay qabtaan gantaalka qaybta hoose. Way ku guuleysteen laakiin wuxuu joogsaday kaliya dhowr ilbiriqsi. Inta uuna duulin gantaalka, Jackson wuxuu qirtay inuu si aad u jecel yahay Mangi. Ugu dambeyntii wuu duulay. Muuqaalka soo socda waxaa aragnaa Mangi oo qabri hortiisa taagan, waxayna weydiisay cafis. Si lama filaan ah, Jackson ayaa soo booday. Wuxuu ku dhaawacmay shilkii u dambeeyay laakiin aad ayuu u fiican yahay markii laga reebo gacanta oo jaban kaliya. Qabrigan waa qabrigii hooyada Mangi oo dhimatay waqti dheer ka hor. Muuqaalkii ugu dambeyn waxaa aragnaa gabdhii walaalihiis ahaa Jackson oo yimid oo si caadiyan dhibi jireen Jackson. Fadlan janaalka subscribe inoo saar si aad u hesho muuqaalo sidaan oo kale ah. Gambaleelkana furo, like inoo saar si aad u caawiso janaalka. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.